iyadoo dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ay ahaayeen kuwo laga wada qayb qaatay oo aan loo kala harin wadaad iyo waran leh, aqoon-yahan iyo jaahil, caamo iyo culimo, fanaaniin iyo weliba abwaano, dhaqaatiir iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba dagaalkaasi ayaa wuxuu ahaa mid ay qof kasta oo Soomaali ah qaab kasta ha kaga qayb gashay ay ka qayb qaadatay. Dagaaladii ha noqdaana lala galay dowladdii kacaanka ee jabhadihii ay kula dagaalamayeen taliskii Maxamed Siyaad, ama ha ahaado dagaaladii kale iyaga Soomaalida dhexdooda birta ay isaga asleen, ama dagaaladii sokeeye ee qabiilka iyo qabyaaladda ku dhisnaa. Soomaaliya ayaa ilaa iminka ka socdaan dagaalo qadhaadh iyo cidna aysan ka heshin, inkastoo gobolada qaar ay ka gudbeen dagaaladii, haddana weli qabyaaladii iyo qabiilkii ayaa weli dhex taagan. Maanta waxaynu soo qaadanaynaa fanaaniinta Soomaaliyeed kaalin intee la-eg ayay ku lahaayeen dagaaladii Soomaaliya ka dhacay, ama ha ahaado kii jabhadihii ee lagula dagaalamayay taliskii Maxamed Siyaad, ama ha ahaado kii kale ee qabaylooyinka Soomaaliyeed iyaga dhexdooda ay isdooxayeen. Fanaaniinta Soomaalida ayaa iyagu weligood udub dhaxaad u ahaa dagaal kasta oo dhaca, laakiin waxay caan ku ahaayeen wadaniyad iyo weliba in la kiciyo shacabka Soomaaliyeed iyo in weliba la dhiirigeliyo ciidamada Soomaaliyeed. Dagaaladii Soomaaliya iyo Ethiopia la gashay 1964 iyo kii kale ee 77 abwaaniinta Soomaaliyeed, fanaaniinta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waxay ka qaateen kaalin libaax leh, kaalintaas oo ah mid mug leh oo taariikhda ay taabanayso. Kasii hor abwaanada iyo fanaaniinta Soomaaliyeed waxay ka qayb qaateen dagaaladii gobonimo doonka iyo weliba halgankii bulshada Soomaaliyeed ay gobonimo doonka ku doonaysay iyo xornimadeeda. Haddaba sidaas ay tahayna fanaaniinta Soomaaliyeed markii dagaaladii ay bilaabmeen, jabhadihiina ay ku kaceen dowladdii ama taliskii waqtigaasi waddanka ka talinayay Maxamed Siyaad, ayay fanaaniintu iyagana waxay ahaayeen dadkii ka qayb qaatay dagaaladii jabhadaha. Haddaba maanta waxaynu soo qaadanaynaa dhowr fanaan oo iyagu ka qayb qaatay dagaalkii jabhadaha iyo kii kale ee qabyaaladda iyo qabiilka ku salaysnaa. Haddaba waxaynu ka bilaabaynaa fanaanka weyn ee codka mugale, macallin ka mid ah macallimiinta Soomaaliyeed ee arday badan gacantiisa ay ku aflaxeen, waa Maxamed Mooge Liibaan. Fanaanka codka halaasiga leh ee la holin waayay Maxamed Mooge bilowgii 80-meeyadii ayuu waxa uu ka qayb galay dagaalkii jabhadihii ku kacay dowladdii taliskii Maxamed Siyaad. waxa uu ka tirsanaa jabhadii lagu magacaabay SNM, taasoo iyada kasoo bilaabatay wadanka Ethiopia. Jabhadaas ayaa iyagu waxay u dagaalamaysay in taliska laga bixiyo ama laga saaro goboladii waqooyiga Soomaaliya la odhan jiray imikana la yiraahdo Somaliland. Maxamed Mooge wuxuu maskaxdiisa, maankiisa iyo weliba codkiisa kaga qayb qaatay jabhadii SNM dagaalkii ay kula jirtay taliskii Maxamed Siyaad. Maxamed Mooge Liibaan wuxuu ahaa macallin habsoo gudbinta iyo weliba la hadalka dadka aad iyo aad macallin ugu ahaa. Maxamed Mooge ayaa kabankiisa iyo weliba sidoo kale qorigiisa kaga qayb qaatay dagaalkii jabhaduhu ay kaga qayb galeen. Maxamed Mooge Liibaan Allah u naxariistay 1984 ayaa lagu dilay meel u dhaxaysa Awaare oo ka tirsan dhulka Ethiopia. Maxamed Mooge isagu jaanis uma helin ilaa uu soo gaaro guushii jabhadii SNM ay ka gaadhay taliskii Maxamed Siyaad oo iyagu xilligaasi ay la dagaalamayeen. Waxaanu soo qaadanaynaa fanaanad weyn oo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda magac iyo maamuus ku leh. Waa fanaanad cod dahabi ah lagu magacaabo boqoradii codka Soomaaliyeed, waa Xaliima Khaliif Cumar Magool. fanaanad cod dahabi ah oo kamid ah dadkii fanka Soomaaliyeed soo bilaabay bilowgii 60-meeyadii ayay fanka soo gashay iyadoo ka qayb qaadatay kor u qaadista iyo weliba kobcinta fanka Soomaaliyeed. dagaaladii jabhadihii markii ay dhaceen, Magool waxay ka qayb qaadatay sidii Maxamed Mooge uu kaga qayb qaatay dagaalkii SNM iyada la dagaalankii sida Maxamed Mooge uu jabhadii SNM ugu biiray ayay Magool iyadan ugu biirtay jabhadii USC oo iyadu ay u badnaayeen qabiilka Hawiye ee iyadu ka soo jeedo. Magool ayaa iyadu waxay dhinac istaagtay Generaal Ciidiid oo isaga hogaaminayay kooxdii ama jabhadii USC. Magool ayaa iyadu heeso iyo weliba hadallo dhiirigelin ay ka jeedin jirtay goobaha ama maamuusyada la isugu yimaado oo jabhadu ay kaga tashanayso ayatiinkeeda ama ay ku guubaabinaysaba ciidankeeda. oo hawiye lagu hadlayo oo Soomaalida lagu hadlayo hanta wixii gobonnimadii askarteen hanta yaa isku soo noqon dardaaran. Magool
ayaa iyadu waxa ay ka qayb qaadatay soo gudbinta hees aad iyo aad lagula dagaalamay taliskii Maxamed Siyaad. Inkastoo dad badan oo Soomaali ay u bedeleen inay magool qabyaalad ay kula dagaalantay qabiil gaar ah, qabiilkaas oo beesha Daarood u badnaa markii magaalada Muqdisho laga bixinayay, iyadoo dad badan oo aaminsan sidaas ay leeyihiin inay qabyaalad cadeysatay. Laakiin sida Maxamed Muuge SNM kaga mid ahaa ayay magool iyadana kaga mid ahayd jabhadii UAC oo iyadu markaas naftirkeeda la dagaalamaysay taliskii Maxamed Siyaad ee rajiimka ahaa. Magool ayaa iyadu heesaheeda codkeeda ku dhiirigelinaysay ciidanka ka ahaa ee waagaasi ee jabhadda UAC, kuwaasoo la dagaalamayay dowladii kacaanka ee kali taliska ahayd. haddana magaceeda marnaba hoos uma dhicin maamuuskeeda. Qof kastoo Soomaaliyan waa ogaa in magool ay ka tirsaneed jabhadii UAC oo ay la dagaalamaysay kacaankii dowladii taliskii Maxamed Siyaad. Fanaanka kale inuu soo qaadanayna waa fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuni. Cabdalla Yuusuf Hanuuni fanaan weyn oo cod dahabi leh, fanaan mulaxin ahaa, muusiqi ahaa, muallif ahaa, wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda aadka u cod macaan. Cabdalla Yuusuf Hanuuni ayaa isagoo qabiil ahaan waxa uu ka soo jeedaa beesha Hawiye, gaar ahaan Murursade. Dagaalkii jabhadihii ayuu ka qayb galay, UAC ayuu ku biiray isagoo ahaa fanaan heesa ka qaada goobaha maamuusyada isugu yimaadaan madaxda UAC ee ciidankooda, iyo weliba inuu dhiirigeliyo ciidanka UAC ee iyagu jabhadda ay la dagaalamayay taliskii Maxamed Siyaad. Cabdalla Yuusuf Hanuuni ayaa codkiisa iyo kabankiisa iyo weliba erayadiisa wuxuu kaga qayb qaatay kicinta iyo weliba dhiirigelinta ciidankii jabhadii UAC oo iyagu ahaa kuwo kala dagaalamaya taliskii Maxamed Siyaad ee wadanka markaasi ka talinayay. Cabdalla Yuusuf Hanuuni ayaa isagu waxa uu qaaday heesa ay ku soo gudbinayeen isaga iyo magool ay ku dhiirigelinayeen ciidanka jabhadda UAC. iyagoo erayada ku soo qaaday in qof kasta oo qeybaha kala duwan bulshada sida aqoon-yahan, caalim, dhakhtar, culimo, haweenka, dhalinyarada iyo dadyooga ay qeybaha kala duwan ee bulshada ee UAC inay ka qayb qaateen la dagaalankii taliskii Maxamed Siyaad, taasoo uu ku dhiirigelinayay in ay ilaa ay guul ka gaaraan ay ku sii socdaan dagaalka lana sii dagaalamaan taliskii Maxamed Siyaad ee xilligaas la dagaalamayay. Cabdalla Yuusuf Hanuuni ayaa dagaalkii jabhadihii wuxuu kaga qayb qaatay sidaasi heesahaasi iyo weliba dhiirigelintaasi. Haddaba intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni maanta inuu kaga hadalnay fanaaniin dhowr ah oo iyagu ka qayb gala dagaaladii jabhadihii iyo kuwii kale ee Soomaaliya ka dhacayba. Barnaamij noocan oo kale ah intaynu dib dambe ugu kulmi doono channelkan ka iloobin like iyo subscribe-ka. Nabadina nooli kulante iyo amaana Allah.